ومقالة مقدشو صوماليا سندku waa 2054 waa qayb ka mid ah Soomaaliyadii hore ee la kala qaybsaday marna ahaan jirtay caasimadii Soomaali weyn intii ay wada socotay iyo intii kala maqnaydba waa arooryo hore oo ay ceeriyaamo darani jirto waxaa sii mugdiyeynaya hawada qiiq xooggan oo cirka isku shareeray oo magaalada dhankeeda koonfureed ka baxaya waa la wada ogyahay inay maalin ciid Arafa ay tahay haddana caruur cayaaraysa iyo waalidiin hagaysa midna lama arko marka laga reebo ilmo dhif iyo naadir ah oo hadba meel ka soo muuqanaya iyagoo waalidkood gacanta ku dhagan yahay oo guryaha ay kula siyaacayaan albaabadu waa ay wada xidhan yihiin inta ay ishu qabato oo wax dhaqdhaqaaq ah ma jiraan dhan walba kolkaad eegto waxaan jabaqda dabaysha ahayn dhagahaaga kuma soo dhacaya inkastoo ciidihii ka horeeyay ciidanba aysan farxad buurani jirin haddana ciidani waa tii ugu xumayd inta la xasuusto dhawaanahan waa ciidaanay muuqan misna la maqlayn waxyaabihii ciidaha lagu yaqaanay aruriyo ciroleba waa ciida ashadini weeye waa ciida aruriyo ciroleba sida farxadii iyo qosolkii odayaal iyo dhalinyaro dharkii khamiisyada cadcad xiran amaba dhalinyaradii macawisaha iyo shaararka gashan jirtay ee labada dhinac wadooyinka ka socda ilmo masaajidada loo sii wado haween koox u wada socda oo wada xijaaban jidad mashquul ah waxaa taqaanay oo idil ee indhahaaga maskaxdaada iyo qalbiguba wada yaqiineen waxba kama jiraan oo ma muuqdaan wadooyinkuna waa ay wada haawanayaan magaaladu waxaan soconba wax bani aadam ah marka laga reebo askar hubaysan iyo qolooyin aan iyaguna askarna ahayn balse sidoo kale sita hubka fudud oo hadba askarta gadaal iyo hore u socota iyaguna la jaan qaadaya waxaa hadba soo muuqanaya oo haddana ku sii dhaafaya gawaadhida isugu jirta kuwa yaryar oo dusha ka furan oo ciidamada ku raran yihiin kuwa gawaadhida raaxada ah oo saraakiil saaran tahay iyo kuwa shabaqlayaal ah gawaadhida maxaabiista lagu guro oo dadka xabsiyada iyo goobaha lagu ciqaabo lagu sii geeyo waxa gawaadhida maxaabiis ahaan qaybta dambe ku raran dad Soomaali ah oo dandarada daranyada diifta dayaca aradka iyo murugadu ka wada muuqato dadkaasi ma hadlayaan ma dhaqdhaqaaqayaan oo indhaha uun bay wax ka eegayaan indha dhimidlayd hadba dhanbay isugu liicayaan kolka gaadhigu dhinac u leexdo waa isku dhib qabaan oo isku dul raran yihiin qaar baa dhaawac ah oo dhiigu ka socda laakiin ma cabanayaan ma ahan inaysan waxba dareemayn oo xanuunsanayn waxaa siba ilowsiinaya xanuunka maskax ahaan iyo qalbi ahaan ay dareemayaan kaasoo ka weyn midka jir ahaan markaasi haya waa la isku wada xidhxidhay oo midba midka kale ayuu ku xidhan yahay islamana hadlayaan xitaa isma eegayaan waa dad nool oo misana mootan oo quus wada jooga oo malaha jeclaanba lahaa inay dhab ahaan isaga dhintaan si xanuunka maskaxeed iyo midka jirkuba uu u wada daayo balse naftu way ku jirtaa waase naf ay ku dhibban yihiin karaahiyeysteen culays ku ah oo aysan waxna ka qaban karin waxay isugu jiraan rag waaweyn haween caruur waayeel iyo nooc walba oo ay bulshadii Soomaaliyeed ay ka kooban tahay inkastoo magaalada Muqdisho ay u muuqato mid maran haddana sidaas maaha xaalku dadku guryaha ayay ka buuxaan caruurta afka la wada hayaa si aan oohintooda loo maqan oo cabsi baa lala soo bixilayahay waxaa la wada maqlaya xabada dhacayay in Sheekh Muuse la dilayna dadku qaarna way u jeedeen oo daaqadaha iyo duleelada albaabada ayay si dhuumaalaysi ah uga wada daawanayeen iyagoo baqaya qaarna way iska qiyaasayaan kadib markay jabaqda rasaasta maqleen alla baayo kuwa Sheekh Muuse dilay inta badan markii xabadahaasi dhacaan oo kale ama howlgal ciidan ha lagu jiro ama si kaleba ha u dhacde waxaa xaafadaha ku soo yaaca ciidanka u xil saaran amniga xaafadaha oo soo qabqabashada dadka la tuhunsan yahay
ay shaqadoodu tahay. albaab jabin baa xigaysa iyo in dadka dibadda loo soo saaro iyagoo la wada garaacayo, dabadeedna wixii is adkeeya la toogto, inta kalena lagu raro gawaadhidii shabaqlayaasha ahayd. dilka sheekh muuse waxay dadku ka baqayaan in isqabqabasho iyo geeri badan xigi doonto. taasaa keentay in albaabada ay xidhnaadaan, carruurtana iyagoo ay qaarkood gaajaysan yihiin guryaha lagu hayo, kii ooyana afka la qabto. heer qaar ay neeftu ku xidhantay kadib markii cabsi darteed afka iyo sanka la wada daboolay, iyada oo aan la dareemayn oo aan ku talagal la'aanay ahayn, laakiin cabsida xaddaafka ah ay sababta keentay. ma ahan sheekh muuse dilkiisu kii u horreeyey, dadkuna way og yihiin inuusan noqon doonin midkii ugu dambeeyey. waa mid ka mid a dhibaatooyinka joogtada ah ee dadka isirka soomaalida sheegta lagu hayay sanooyinkii u dambeeyey isxigxigay magaalada tan muqdisho ay hore u deganaan jireen. inkastoo baryahanba xaaladda amni ee magaalada muqdisho aysan fiicnayn, haddana middan ugu dambaysay waxay salka ku haysay is-afgaranwaa ku qotomay diidmada isu soo baxa salaada ciidda oo meel fagaaro ah lagu ballamay oo baryahanba laysku hayay arrinteeda. waxay doodu ahayd wixii salaad raba xaafadahooda ha ku tukadaan. odayaashii loo yeedhay ee allah u naxariistay uu hogaaminayay sheekh muuse waa soo diideen amarkii la soo siiyey ee ahaa in maalinta ciidda ah aan la aadaami karin. sheekh muuse allah u naxariistee doodiisu waxay ahayd, sideen u daynaynaa? waaba diinteenne, wax walba waad naga qaadateen, dhul, bad, dal iyo dadba, ma diinteenaan idinku darnaa? hayhaataa ayuu ka yidhi sheekh muuse. waxaa lagu soo kala tegay digniin iyo hanjabaad loo soo jeediyey odayaasha oo ka timid ciidanka. waa ilhaano in muddo ah soo socotay iyo sannado badan oo is-urursaday oo gunnimo ah natiijadoodii. muddo fog baa ka soo wareegtay markii shaqada in laga fasaxo loo diiday muslimiinta maalinta ciidda. waxaa ka sii horraysay sharcigii xaaraantinimaynayay in magaalada muqdisho soomaalidu ay degaan ka dhigtaan xaafadaha qaar ama guryaba ka karaystaan, sida xaafadda adiis nagar oo ah xaafadda madaxda keliya ay degaan, iyo sidoo kale xaafadda muruud safiir oo ay degaan dabaqada dhexe sida ganacsatada iyo shaqaalaha dowladda xabashida. waa xaafado waaweyn oo qaybo u sii kala go'go'an oo si heer sare ah loo dhisay, ammaankooduna uu aada u sugan yahay. muqdisho oo 3 u qaybsan marka laga reebo 2 xaafadood oo sida heerka sare ah loo agaasimay dhismahooda, waxaa qayb gees ah kaga yaala magaalada oo aad mooda inayba ka go'an tahay inta kale meelay Soomaalidu degto. waa halka keliya ee loo ogol yahay inay degto, waayo qaybaha kale sharci baa u diidaya. waxay ugu yeedhaan Soomaalida xaafadaasi xorriyo, laakiin Itoobiyaanku waxay u yaqaaneen khushaasha wasakhdi. waa meel dayacan oo faqiirnimo ba'an ay ka muuqato oo bulacaduhu ay wadada ku fatahayaan. dadka xaafadahan la isugu geeyey inkastoo ay dhul weyn ku fadhiyaan, haddana hal deegaan bay isku yihiin oo waa Soomaali dhammaantood. dadkaasi rag iyo dumarba wax shaqo ah ma hayaan, mana helaan, waayo marka laga reebo jidgooyooyinka dhabta ah ee hor yaalla caqabadaha noloshooda ku gudban, qaybaha ugu weyn waxaa ka mid ah xagga helista shaqada oo ay ku khasban yihiin inay soo caddeeyaan inaysan argagixiso ahayn, taasoo aada u adag in la caddeeyo. maxaa yeelay maadaama nidaamka dowladeed ee jira uu u samaysan yahay inaan la aqbalin caddaymaha ay la yimaadaan dhammaantood. soomaalida oo iyagu ku wada shaabadaysan argagixisanimo darteed waxba way tari weyday inay yaqaanaan af amxaariga, oo waxa uun loo arkayaa argagixiye af amxaari ku hadlaya. sidoo kale waxaa dembi ah inay awoowayaashood Itoobiyaanka la soo dagaalameen sanooyin badan ka hor. waxaa muddaba hor taalay Soomaalida
xaalad aanay sinaba u guulaysan karin. sidaa daraaddeed maba shaqeeyaan, xitaa iskuma dayaan inay helaan, waayo maba helayaan. shaqo la'aantii waxay keentay dhaqaale xumo. dhaqaale xumadiina waxay keentay in deegaanka Soomaalidu u ekaado meel aan xayawaanaadka qaarkood ku noolaan karin, bani aadamna warkiiba daa. intaas waxaa sii dheer jidgooyooyinka dhabta ah ee xaafadda Xorriyo hor yaalla ee lagu bahdilo marka ay sii gelayaan ama ay ka soo baxayaan gabdhaha, hooyooyinka iyo waayeelada intaba. askar baa joogta dabaabado wata oo degan oo xabashiya. jidgooyo kasta qolol baa ka dhisan ujeedo badan ah, balse image ahaan ay ugu yeedhaan xafiisyo. qolalka waxaa lagu kufsadaa haweenka Soomaaliyeed. kumanaan wiil ayaa ku dhintay arrintaa foosha xun kadib markii ay ka dhiidhiyeen oo si arxan daran madaxa looga wada toogtay isla goobta. taas oo keentay in haweenku ay qarsadaan xumaanta lagu sameeyo oo qolka markay ka soo baxaan ay bannaanka u soo baxaan magaca la huwinaya uu yahay in baaritaan lagu samaynayay, ay wixii loo geystana iskala aamusaan si ay wiilashooda u badbaadiyaan. oo iyagoo xanuunka, urugada, uurkutaallada qarsanaya oo la gubanaya qosol been ah ku qariya, hoostana ka gubanaya. waayo kufsi iyo dilka walaalkeed ama saygeeda ama wiilkeeda oo horteeda lagu dilo waxay ka doorbidayaan in musiibadu mid tiro ahaan ay ku koobnaato. raggii Soomaaliyeed oo shakisani markay walaashii, hooyadii, inantiisa midkood weydiiyeen in jirkeeda la taabtay ayay ugu dhaartaan inaan la taaban. qosol been ahna wejiga ayay sudhaan, iyadoo laba xanuun isku qabta mid saddexaadna ka cararaysa. waa nolol meeshii ugu liidatay meel ka sii liidataa. daawadayaal, la soco barnaamijka qaybta kale ee magaalada Hargeysa iyo sanadka 2054.